kulanti wanaagsan dhamaantiin baa daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii dhaqaalaha oo aad nooga barateen inaan idinkaga soo gudbino telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya habeen walba oo talaada barnaamijkeena dhaqaalaha ee caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa mashruuca fidinta beeraha oo hoos yimaada wasaaradda beeraha mashruucu waa mashruuc madax bannaan ku dhisan xeer madaxweyne sharcigiisana la yiraahdo sharci lambar 8 soona baxay bishii December 1980 wuxuu ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee wadanka ka jira darajadiisuna waa darajada koowaad mashruucu rasmi ahaan wuxuu bilowday bishii August 1980 hase yeeshee hawshiisa rasmiga ahayd ee xagga beeraha waxay hirgashay bilowgii 1981 halkaasoo hawshiisu ay ku bilaabantay guga sanadka uuna gudbinta aqoontiisa iyo farsamada beeraha uu u qorsheeyay 25,000 qoys beerado maadaama uu moosku ka mid yahay ilaha dhaqaalaha dalka waxaa xoog la saaray sidii hore loogu marin lahaa tiro iyo tay ahaanba waxaana uu hadda maraya heer wanaagsan oo uu kula tartami karo muuska ka soo baxa dalalka kale ee adduunka taasina waxay ka dambeysay kadib markii la abuuray shirkadda Somali Fruit oo ilaa maanta hawsheedu ay si habsami ah u socoto